السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين وادين سلامي وحادي رجاني مالي وناكسن هابين وناكسن قلب وناكسن ميلكستا دونك جوكتين إي وحوال بإذين تهيبا وولاشين شكرين دقاي maxay ahayto idinla wadaagi jirtay waxa aan isleeyahay bulshada wax way tari karaan ama ani anfacay ama dad aan la taliyay ama la shaqeeyo wax taray maanta marka insha Allah waxaan jeclaanahay inaan idinla wadaago afar waalid oo u kala waalidiinta sida u kala baxaan oo badanaa cimri baaris badan markii lagu sameeyay la soo cadeeyay oo ku koobnaatay ilaa qiyaastii 4 camal afartaas oo u kala baxaan u taliye oo ah waaridkaas oo noqon karo aabba ama hooyo waaridkaas u taliyaha ah badanaa wuxuu isticmaalaa awood sheegasho amar taakuleen anigu waxa dhaho sameey aniga waarid ah waaridkaas marka khatartu ilmaha gelin karo waxa weeye in uu iloobi karo ilmahan inuu yahay qof jiro maskax leh aqli leh ilaahay qof u soo dejiye ah oo qof cusub ah waa ilmo oo aqli buuxa ma laha oo wuxuu baahan yahay in la garab wado la garab taagnaado gacan la siiyo la toosiyo wixii ka qaldan wixii ka saxan loo sheego laakiin taas macnaheeda ma ahan waa xoolo oo kaleeto oo fikir lahayn oo maxay ahayto oo iska socdo oo wixii lagu shuboon iska qaadanayo qofkan dareen uu leeyahay maskax uu leeyahay aragti gooni buu lahaan karaa marka hadaa tahay waaridkaas taliyaha ah oo amar ku taagleenta uu ku koriyo caruurtiisa mar walbo ilmahaas waxa galin kartaa halis khatar ah halistaas oo ah hadda aad arki karin ama aad ogaan karin sababta oo ay tahay waxa laga yaabaa ilmahaas hadeertaan inay gacantaada ku jiraan aqli buuxo ay isku kordhiyaan ama ay wax ku qabsadaan ay haysanin balse nasiib daro maalinta ay awood yeeshaan aqli yeeshaan xoolo yeeshaan maada barin sida kaleeto oo maxay ahayto maada siina fursad ay ku noqdaan qofka iyaga yihiin ay ku ogaadaan ay ku baaraan qofka uu yahay ilmahaas balse adiga unba isku celcelinaysay in ilmahaaga adoo kale noqdaan marka ilmahaas halista ay galin karto waxa weeye markaas inay fakadaan oo kale ama tusaale ahaan markay teenager noqdaan ama waqtiga jaamacada gaari lahaayeen la gaaro waxa laga yaabaa ilmahaas inuu ma aragtay sida ku qeexin waaridnimo oo kale ama xataa ay qasab amal ku tahay uu isleeyahay oo waa ku qasbanahay ina maxay ahayto waa ku qasbanahay waa hooyaday ama aabahay ina ixtiraamo ina wax u sameeyo laakiin ayna ka imaanin wadnaha kalgacayl ahayn ayna ka imaanin madaxiisa maskaxdiisa laakiin uu isleeyahay sameey waa ku qasban tahay waxa ka fiicnaan lahayd Soomaha inuu qofka jacayl kalgacayl rabitaan xiiso ku imaadaan laakiin waxaas waa wax anakana laga rabay waaridkaas oo ah u taliyaha ah oo isticmaalo mar walba amar ku taagleenta ah haduuna abuurin miro walba waa la abuurtaa caruurta waxa ku abuurano baa la helaa so it's very very important in asaasman aad bay muhiim u tahay sababtoo ah ilmaha waxay noqdaan wax lagu koriyo meesha ku koraan dadka la koraan dadka wax la bartaan dadka meelaha u raacaan iyo waxaas oo dhan marka adi ma doonaysid mana rabtid ina ilmaha ku soo tiir iyo tacabeeshay xoolahaagii maskaxdaadii aqligaaga muruqaadii galisay mar alle marka awood iyo aqli ku filan yeesho inuu ma aragtay oo isku qasab amal oo wax kugu qabto oo maxay ahayd sidii laga rabay oo naxariista jacaylka iyo waxaas oo dhan maxay ahayd aad ka weysid taas kaliya ma ahan taas waxa xagga dareenka iyo xagga xiriirka idinka dhaxeeyo adiga iyo ilmahaas balse nasiib daro waxa kale oo ilmahaas dhaawac u gaari karo xag maskaxiyan xag oo dareenka wadnaha ah xag xataa kobaca ah sababta oo ah waxa dhici karto ilmahaas yar inuu mar walba rabo in loo taliyo haduu ilmahaas mar walba in loo taliyo wax loo sheego uu iloobaba ama ay ilowdo sida maskaxdeeda Ilaahay siiyay uu ka shaqaysiyo sababta ah wuxuu bartay mar walba la hogaamiyo waa ilmo 25 jir ah 18 jir ah 30 jir ah oo u baahan inaad adiga un hogaamisid meesha adiga nasan lahayd oo wax lagu qaban lahaa waarid ahaan waayo adiga maada siinin fursad uu ilmahaas ku barto wuxuu qaban karo ama waxay qaban kartay aragto shaqsiyad uu ku noqdo qofka uu yahay asaga
ama iyada isku bartaan maada siinin sidaas darteed mar walba wuxuu noqonayaa qof gacanta u taagan tahay oo adigu ka sugayo in ma aragtay aad wax siiso wax u sheegto waxaas oo dhan taasna ma aha taasna waa mid aan ka dagaalamayno oo ka dideeno dhamaanteen waarid ahaan waxa doontid meesha doontid joog waarid walba wuxuu rabaa ilmihiisu inuu noqdo ilmo isku filan wax qabsan karo asi wax tari karo umada wax tari karo waaridkiis wax tari karo adduunka wax ku soo kordhin karo banasiib daro adiga ilaahay fursad uu ku siiyay waarid ka dhigay waxa muhiim ah in aad adiga samaysid wixii laga rabay hadaada garanaynin aadan aqooninna ay jiraan dad ku takhasusay waxyaabahaas oo aqoon badan u leh oo buuxo oo aniga kamid ahay oo idin caawin karo insha Allah oo u baahan in ma aragtay aad ilmaha ma aragtay tixgelin u siino ina u siino ma aragtay aan tusno jacayl inaan tusno ma arag kala dambeyn inaan tusno ixtiraan because waxaas oo dhan markaa tustid asagana ama iyadana way ku tusaysaa markay weynaato marka taasi waa mid waa taan idin iri waa afar way u kala baxaan waalidiinta guud ahaan kii koowaad buu ahaa ka midkii labaad waxa way loo taliye waa waaridka mar walba haya raaca ah oo ilmahaas hayadiisa ma ogiye wax kala sameeynin oo u maleeyo inuu ilmaha jacayl siinayo haduu maya dhahabo oo ilmaha jacayl siinaynin waa qalad taas sababtoo ah mar walba in ilmaha ku taliyaan ma ahan waa qalad in mar walba ku taliyaan waayo madaxooda ma buuxo waa ilmo wali maxay ahayto amal waxaana rabaa haye halkaas aada haye waxaana cunaa haye intaan wax ku soo sameeyna haye maya aan jirinba maya aan jirin taas halis u tahay caruurta kalima ha iloobina caruurtan hadda yaryar waa amaano ilaahay noo dhiibay amaanada ka sokowna waa mustaqbalkii ma aragtay dadkeena iyo dalkeena badbaadin lahaa marka waa ku khasbanahay hadii aan rabno nolol fiican ku noolaano dalkeena dal fiican noqdo hogaamiyaal fiican aan helno waa inaan ku takhasusnaa ilmaha si wanaagsan u korino waayo dadkan hadda korinayno waa dad mustaqbalkeena iyo wadankeena iyo adduunka hogaamin lahaa hadda tusaale ahaan ani iyo adinka meeshan ka wada xiriirno waa internet iyo ma aragtay iyo telefono iyo waxyaabahaas oo dhan yaa keenay waa qof ra'yigiis oo ilaahay waafajiyay laakiin qof kasto hamoodin qof inuu qofka aqli badan yahay qofka ma aqli badno laakiin waxa jiro maskaxda in training lagu sameeyo tababar la siiyo tababarkaas oo noqon kara nooc walba tababarkaas qof walba qaadan karo qof kasta maskaxdiisa ka shaqeeyay inuu la imaan karo wax cusub oo dalka iyo adduunka oo dhanba bedelo waxna taro tusaale ahaan hadda YouTube-ka iyo Facebook-ka iyo social media iyo meelaha aan ka xiriirno iyo waalidiinta aan u sameeyo workshops iyo training-ka aan siiyo meel walba adduunka ah marka maxaa keenay waxaas oo dhan intee iska baranay intee iska la xiriirno waa internet dib markii loogu laabto marka internetkaas iyo social media iyo waxaan hadda adduunka kala wado wax ka bilowday qof fakarkaas oo la baroobeeyay oo la dabagalay oo ka bacdina laga shaqeysiyay marka taas macnaheedu waxa weeye in qof walbo wax ku jiraan balse nasiib wanaag aan kulligeen ka wada shaqeyn karno oo ma aragtay u baahan waqti in la geliyo waqti markii la geliyana insha Allah ilaahay duu ku waafajiyo oo magaca ilaahay ku bilaawdid oo intention kaagana fiican yahay inama la amalu binniya buu dhahay ilaahay niyad fiican hadee waxaan ay ka tahay si adoo qofna ku dhibaateynaynin waxaas oo dhan oo rabtidna horumar iyo reereyn ku keentid dalkaaga iyo dadkaaga iyo dunida oo dhanba dan ilaahay insha Allah ku waafajin doona sababtoo ah ilaahay wuxuu ku dhaay weydii anna waa ku siinaya so that is the reason why marka loo taliyaha aan ka hadlayo waaridka loo taliyo ilmahaas oo kaleeto hadhowdii markuu teenager noqdo waxa laga wadaa teenager adi dhadhaxaad ilmaha 12 jirada ah iyo 20 jirada ah markii laga bilaabo 13 sano ilaa 25 inta u dhaxeyso waqtiga aadka ma aragtay ilmaha ay u raad bini'aadanka sidaba uu u raadiyo qofka uu yahay wuxuu doonayo hadii markii hore fursad u helin inuu isbarto asaga is aqoonin dan maxaa dhacay markaas
ilaan asaa kuu taliyay samahan halis asoo meel halis ku sugan ama wax halis sameeynaya oo kaleeto aad rabtaa in ilmaha ka celisid oo kale nasiib daro ma ka celin karaysid because waxaan waa ku soo abuurto kale beer marka abuurtid like biyo ku shubmaan weynaato dhasho miro ma dhihi kartaa hadda istaag because ma ku baahani amal saas oo kale ma istaagayso because it's too late waa la soo daahday marka sidaas darteed waxa muhiim ah ilmaha hayar inay ku talinin zaid sababtoo ah you know halis haduu galo tusaale ahaan haduu ku dhaho amal oo maxay ahayd 12 oo kale habeen barkii oo kale waa wacday hooyo halkay joogtaa ama ayada ama asaga qofku noqon karaa ama gabar ama wiil ama inan ku dhaho halka baan joogaa adahda waqti dambe way hooyo ama aaba waqti dambe way soo gal guriga halis way banaanka saacadaha ku maqnaanin marka ku dhaho no waligay bana isku talin jirano intaan ka yar hadeerta ma halisteed ka walwalaysa you know marka adigan walwala ku galay ilmahaas ma ogid wuxuu ku sugan yahay drug soo isticmaali kara meel halis oo jirkiisa oo isticmaalayo ku jiri kara iyo waxyaabo kale badan nasiib daro waxa soo dhintay ku abuurmeen markii hore u nacamleynta halistaas ay galin kartaa inuu kula tashanin inuu ka amar qaadanin in ma aragtay adib waxba ka soo qaadin taasna ma aha waxa anaka aan rabno samaha mid saddexaad waxa weeye mid aan loo talinin looma taliyo loo talinin allaha waxna uma taliyo aanan la tashanin qofna caruurtiis umana taliyo asaga ayakana uma taliyaan mana la tashto so waalidkaas uninvolved waaye alshan kuma jiro xaaladooda iyo waxooda waxa kaliya uu ka walwalo waxa weeye cuntadaasi dhar cusub soo gad because waa waajib oo qasab ah siiba hadda dadkeena adi western world ka joogo adi Europe taana Mareykanka oo kaleeto way alshan qasab ay ku tahay sababta ah gaalada ilmaha nala daawanaya ma fahamtay iskoolka markaa gees ilma dhar sidiisa ah ama baahan ilmaha laga qaadanayo soo ku qasban yihiin kuwaas ma fahmay inay cuntadaas iyo dharkaas iyo keenaan anyways laba gooro way ku qasban yihiin xaq ilaa xataa laakiin you know markay jiro cabsi gooni ahna markaas waa si cabsanaysa sama dadaalka si badinaysa marka nasiib daro maahan ilmaha ina ka kobcisid waxay cunaan iyo waxay xirtaan cunto si dhar u xir okay maxay tahay schoolgay dugsigay soo celi seexi no nasiib daro ma ahan intaas oo kaliya waayo hadda taas bas ku koobtid waxa dhici karo ilmahan inuu ogaan waayo qofku uu yahay ama qofka ay tahay shakhsiyada ay ka lunto shakhsiyada markay ka luntana waxa dhici karo markaas ilmaha inuu yahay hadhoodii kale dhibaato markay la soo kulanto waxyaabo ay dhahaana jiro depression ila ilmaha inuu asaga isku laabto qolka isku xiro dad ma rabayo he doesn't want inuu qof la hadlo ma doono inuu qofna la hadlo maxay ahayto game uu ciyaaraya wax uu cunaya ma doono inuu shaqo tago you know way badan tahay dhibaatada wax meesha lagu soo koobi karo ma ahan insha Allah laakiin marka la mid uga hadli doona waxyaabaha keeni karo iyo sida xal loogu raadin karo ilaahay ana waafajiyo dhamaanteen insha Allah marka ilmihi adna uma talisid waa kan saddexaad loomana taliyo lamana tashto marka waa iska soco soo gal sii bax soo gal soo hadhoodii marka maxaa dhacayo because intiba ma xiriir gooni ah mid ka dhaxay because just waxa waajibka oo basic ah waxa muhiimka ah oo basic ah keento the human basic needs waa bini'aadanka waxa ugu muhiimsan oo ugu fudud bas u keento ilmahaas wax kale maad ku soo kordhinin maskaxdiisa maad kobcinin wadnihiisa maad kobcinin because maskaxdiisa sida aragtidiisa ilmaha kobcisid sida wax uu arko saacadi wax aragti idea reernaas wax yar u yar sheegtay inta kale asaga ama iyada wareysatid see u aragtaa saasade dhacdo see u xalin lahayd problema keentidoo kale because markaas ilmaha asaga shakhsiyadiisa ogaanaya wuxuu noqon qof isku filan ilaahay ka soko asagana isku tashto ama iyada isku tashato balse nasiib daro
haddii ma aragtay aad isaa dhicin wuxuu noqonayaa qof mar walba qof kale sugayo qofkaas kale wuxuu noqon karayaa qof friend ay yihiin friendkaas oo noqon kara friend xun nasiib daro oo meel xun ku hogaamiyo oo meel halis geliyo oo daroog geliyo oo ma aragtay ilmaha xabsi ku dambeeya dhamaantiis ama meel ka sii dardan dhimasho ay ku dambeeyaan waxaasna wax aan rabna ma ahan ilaahay ka soo ilaahay muxuu nahay dadaala ana waa idin garab galaya marka waa qasab wana waajib inaan garab qabano qof kasta qofka kale wuxuu isleeyahay inuu og yahay inuu bulshada soo bandhigaa sida loo kala faa'iido marka waatii oo ma aragtay uninvolved ka ahaa maxaa dhacaya markaas oo kale wax yar waxaan rabaa inaan tusaale ku soo celiyo kii koowaad aan dhahay oo ahaa u taliye oo kale oo xagga waxbarashada aan tusaale ka soo qaatay insha Allah waalidkaas u taliyaha ah badanaa waxay sameeyaan ilmaha waxaan because waxbarashada dhinaceeda oo kale tusaale ahaan wuxuu hooyo markaa weynaatid ama aabo markaa weynaatid waxaan rabaa inaad dhakhtar noqotid anaka dadkeena badanaa dhakhtar jecel yihiin inaad dhakhtar noqotid waa dhakhtar wax xun ma aha waa wax wanaagsan ummadda u baahan tahay waa run waa muhiim balse ha iloobin meeshan ha ka saarin ilmaha yar inuu yahay ilma shakhsi ah ogow qof walba ilaahay adduunka sabab u soo diray kulligeen hal sabab aan noola soo diray oo naga wada dhaxayso oo ah inaan ilaahay caabudno sababo kale oo shakhsiyaad ah jiro oo gooni ah dad ma arkin oo iska jecelba inay dadka caawiyaan oo shilina ka helin maxaa sababay maybe ilaahay sababtaas u soo diray inuu dadka caawiyo ma aragtay dad dib badan oo dagaal badan oo saan I don't know laakiin ma ogaan karno ilaaha og anaka cilmi qayb ma nihin laakiin waxa hubaal ah qof kasto shakhsiyaadiisa wax gooni ah inuu ku takhasuso oo wax gooni ah ku soo kordhiyo adduunka marka hadalkaan ku badinin insha Allah telefonka soo gala badana video kale groupyo gooni ah hada xiiseynaysid insha Allah waa ila soo xiriiri kartiin hadoo kale email facebookayga ama emailkayga idin reebi doona hadii ilaahayga awood la idmo marka ilmihi marka ku dhahdid aad kor u qaadid okay dhakhtar waa inaan noqotid ama engineer inaan noqotid weeye aan ilmihi waxa loogu talagalin inuu noqdo ama maskaxdiisa ku jirin ama ma arag sidoo ilaahay u abuuray ama rabitaankiisa ba ahayn soo ilmaha muxuu ku qasbanaanaya inuu isku dayo ilaa heer ana baan ku sheegay walaa gabdho badan ajiraan iyo wiilal iskool ilaa jaamacad isla tagnay oo drop up gareeyeen qaarna bedeleen markay hal sano bar 2 sano ay dhiganayeen jaamacada bedelay maadadoodii oo maada kale ku bedelay taas maxaa keenay waqtiga ilmaha ka dhumay energy-ga ka dhumay hurdo la'aantiga ka dhuntay wax ay sarabin waxay og yihiin inay mustaqbalkooda heer ka gaari karin marka intaas wuxuu sameeyaa ilmahaas just do it rabo inuu aan sameeyo ama do it sameey hooyo rabta inay sameyso ma xuma in waalidka waxay rabaan aad sameysid laakiin xagga waxbarashada xoogaa waxa fiican ilmaha ina fursad siino ilmaha mid kale anaka aan barano ina baratid ilmahaaga waa muhiim wuxuu khibrad ku leeyahay wuxuu ku fiican yahay markaas ilmahaas meesha ku haboon ayaad ku hogaaminaysaa meesha ku haboon ayaad ku dhiirigelinaysaa balse nasiib daro hadaad adiga ba garanaynin ilmahaaga waxa isleedahay waxaan uu ka mira dhalin karayaa maxaa dhici karo ina meel adiga aad markaa yareed ku riyoon jirtay inaad gaartid ama waxa ku riyoon jirtay inaad sameysid aad sameyn weysay nasiib daro ama waqtiga ku saamixi waayay ama lacagta ku saamixi weysay ama waxyaabo kale oo nolosha kamid ah ay ku saamixi waayeen aad hadda doonaysid ina ilmahaaga sanka ka galisid taasna wax wanaagsan ma ahan sababtoo ah adiga waxaas adaa jecleed adigaana rabtay ina maxay ahayd waxaas baratid ina meeshaas tagtid balse ilmaha waa ina baratid so muhiim ina waqti gooni sameysid oo ilmaha isku baratiin waqtigaas goonida oo ah meel amal hada dadkan ala deganahay oo kala wadamada Europe waqti gooni oo ilmaha waxay meel oo la geeyaa other activities kale geenaysa oo ilmaha ku ogaanaysid hada waxaan khibrad gooni ku leeyahay ama ma aragtay xiiso gooni u hayo soo markaas khibrada gooni wax markuu ilmaha u leeyahay khibrad waxa aha jirto maxaa leeyahay hadiyad ilaahay dadka qaar gooni u siiyay khibradaas oo kale markaas ogaan kartaa sida ma aragtay maxay ahayd footballka oo kaleeto maxay ahayd waxa jiro exercise classes running athletics waxa jiraan
drawing waxaa jiraan many other things boqolaala jiraan hadda meesha lagu soo koobi karin karates wax walba gayn kartaa ma fahantay even hataa kuwa drama classes waa gayn kartaa because drama class wuxuu ku fiican yahay ilmahaaga waxa laga inuu u jecel yahay public speaking inuu noqdo inuu dadka ka hadlo TV presenter noqdo wariye noqdo inuu madaxweyne noqdaan in maxay ahayto waxaas dhan ay ka caawinaysaa si oo confident dad boqolaal kun oo qof inuu ilmaha soo hor istaagi karo wax u sheegi karo wax ka dhaadhicin karo marka taasi u fududeynaysa inuu barto ilmaha soo waxyaabahaas oo dhan marka meelahaas geysid oo waqti gooni u sameeysid ilmaha asna uu isbaranaya wax le waxaas laba marka gisooy waxa kama helin ama aaba kama helin waxa marka adna waa u fiirsanaysaa waxa inuu ilmaha xiiseyneenin ama uu ma aragtay waxba ku soo kordhinaynin tan go'aankaas waa reassessment ku sameynaysaa waa marlabaad dib uga fakaraysaa hadana waa eegaysaa wixii kale ku haboonaan karo marka waa ma fiicnayna taliye noqotay my way or the highway sa aniga doonaya samee hadii kale jidka qabo haday noqoto sheekada saa halis badan baa ku sugan caruurta markay fursad u helaan ayaka inay kaligood bixi karaan ina soo noqon karaan marka fursadaas waa ina anaka iska ilaalina dhibaatadaas idaabaca marka saddex waa idin sheegay mid baa haray xasuusta waxaan idin dhahay 4 insha Allah so midka u dambeeya waa midka ugu fiican waaridkan waa waarid la dhaho wada tasho way wada tashtaan waa waarid oo kaligiis ku aan gaarin waa waarid ilmihiisa markuu fakar ama wax guri ku soo kordhayo la tashto waa waarid ilmihiisa ixtiraamo waa waarid ilmihiisa dhageysto haday wax qaldan ku socdaan ama wax kaleetana su'aalo weydiyo tusaale camal maxay tahay ilmaha wax ku dhahay meesha saaraba in aad su'aalo ka weydiin adoo dhihin maya wariya ama maya ma baxaysi ma tagaysi meeshaas na malgo oo kale meesha soo tagi kartaa adoo la soo boodin just su'aalo weydiinaysa qofka waa qof bini aadan oo jiro just because uu yar yahay ama uu yar tahay macnaheeda ma ahan waa ka faa'iideysan kartaa oo ma ahan ina niyada iyo qalbiga iyo maskaxda ka dishid oo mana doonays ilmaha inuu adi habeen imaalin ku hoos taagnaado oo adiga ma aragtay oo ka sugo wax ilmaha waxa rabtaa ilma isku filan ina soo saartid ilaahay ka baqaayo ilaahaygood ku xiran nabigood alayhi salaatu salaam tusaalihiisa qaadanayo ku dhaqmaayo ilma ma aragtay bulshada wax ku soo kordhinayo ilma ayaka naftooda inuu wax tanaan dhaafto ma aragtay adduunka oo dhan ma aragtay wax cajiib keeno that's what we want waxa arabno oo u dagaalameyno oo u dadaaleyna dhamaanteen waa intaas ilmo jannadiisana ka shaqeysto adduunkana nolol fiican ku noolaado marka taas waxa ku imaanaysaa ina shaqo badan guriga galino haddii shaqadaas guriga galin marka way adkaanaysaa hadhoodii in ma aragtay waxaas oo dhan ay suurto gasho so waaridka ugu fiican waa la tashtaa la dhahaa la tashtahan marka ilmihiisa wuu la tashtaa tusaale camal wuxuu dhahaa okay sabti axadan oo fasax soo galay camal anaka Yuruba joognaa sabtiga axada fasax aadna laakiin waalidiinta kale oo wadamada islaamka joogo kale khamiistii jamcadan oo kale maadaama fasaxii oo isbuuc la soo galayo waxa ku fakaraya in halkaas tagno maxay idin tahay adinka hada inta dhihleed halkaas tageyna isku mid maaha magta halkaas tageyna marka dhahdid amara siisay go'aanana qaadatay maadad soo galinin ra'yigooda soo marka albaabna maada u furin ee ra'yi iyo kugu soo darsadaan laakiin daarad meeshaas ku fakarayo hooyo ama meeshaas ku fakarayo aaba ina idin geeyo ama dhamaanteen sabtiga oo kale ama khamiista jimcaha oo kale ma qayd hebel ina ka soo qadeeno ama ka soo casheeno see idin la tahay adinka mid kale ma jirta xiiseynaysiin so ilmaha xogda yes abo yes hooyo ha abo maxay tameel hebel meesha sajacsan markaasne waxa leedahay hada awoodid ada og jeebkaaga moogtahay marka inta adihleed oo no ma aadi kana rag runta fahansi ma fahmi waxa leedahay okay haday sheegtaan meel qaali ah oo awoodin waxa leedahay hooyo ama aabo ma maleynay ina kaas tagi karno isbuucan sababtoo ma maleynay intaasay na charge gareeyaan ilmaha hada xisaabta ku baranayaan dhaqaalahay si fiican ugu baranayaan dhahdid ma tagi karno meeshaas because waxay la tahay maxay tahay isbuucan maana ku darin budgetka so intaas ku baxayso marka intaasna isbuuca ma tagi karno meel kale ii sheega meeshaas laakiin balan way aad doorateen isbuuc dambe idin geena ama bisha markay lacagteeda ii soo dhacdo ma fahmaysaa so ilmi marka wuu ku fahmayaa
so waa la tashatay adi uma talinin oo adi ma dhihin maayo wada hawi saani raba samee ama soco ama asna kuma talinin oo wuxuu asaga rabay maada u raacin waa wada tashateen waa go'aan aad wada gaarteen ma fahmaysaa oo isku raacdeen marka da tusaale kaasna tusaalayaal kale badan aydin sheegi karaa insha Allah marar kale badan aan sheekaysan doonaa and ani hadda mar bilaab hadal I just talk too much iskaraal noqda marka waxa rajeenayaa in aad uga hesheen fadlan hadii aad ka hesheen dadka kale la wadaag maxay ahayd subscribe na samee adigoo aad iyo aad u mahadsan maxay ahayd wacyigelinta ay wanaaga aan wada wadaagno insha Allah marka waxa kale oo ugu muhiimsan waxa weeye mar walba jeclahay inaan waalidiinta la wadaago oo ma aragtay ilmaha mar walba inaa wareysi oo maahan interview wareysi si kaftan iyo involvement inaa u samaysiin oo ma u baahnid marka qaar inaa meelo fogfogaysid gurigaaga dhexdiisa ka helaysaa wax walba tusaale ahaan ilmaha soo barto khibrad waa hadaa rabti inaa la sheekaysid sidoo kale timetable inaa u samayso dhaad hebel iyo ani maanta camal waxaad isla raacina jikada oo kale cuntaa isla karnayna soo ilmahaaga science ko baranaya sida wax la iskugu dardaro waxaas hogaamintu baranaya sababta meeshas wax walba xubnaana in waqti ku socdaan cuntada kale marka karnaysa kan baa fast lagu shuba kana ko lagu shuba kana laba lagu dara kana saddex lagu dara intaas oo daqiiqo la sugaa intaas daqiiqo kan soo ilmihii wuxuu baranaya sabar kan ku baranaya ma fahmaysaa maalin heblaaya iraacaysa maalin hebela iraacay you decide adaa go'aan ka gaaraysid oo dhehaysid okay timetable kale guriga xataa xaga hagaajinta oo kale waa muhiim ina involved ka dhigtid waa muhiim ina soo galisid ilmaha sababtoo waxaas waxyaabo badan oo aad u badan oo anaka hada soo koobi karin oo isdheheenin waxaan isdheheen ilma yar waaye marabi because anaka badana aniga mar qaar way u dhacdaa laakiin waxa isku dayaa hadda ina ma aragtay iska ilaaliyo adoo ama degdegsan ama ma aragtay ilmaha baahanyiin arabtina boobsisid ilmaha markaa bartid involved inay wax walba inay kula qabtaan kugula jiraan gacmaha waxa rabtaa wixii inaad kaliya boobsisid marka war iga tag ama iga tag waxaan sameysanaay leedahay no it's not nice wax kala u dhiibi kartaa toonto kala ifiqdi kartaa wax kala taa siin kartaa ma fahmaysaa intaasna adina wax waa lagu taray ayakana wax way istaneen waxay barteen waxayna dareemayaan inay familka ka mid yihiin ahayn foreigners inay ahayn marti inay ahayn gurigan go'aankiisa iyo wax qabadkiisa ee wax ku leeyihiin mid kale oo muhiim aad u ilmahaaga ama hala aado ama 20 ahaadaan waa muhiim inaad siisid 10 daqiiqo maalintii ama subax hore noqoto ama habeenkii markii la soo wada hooyada ha noqoto adi plan garee 10 kaas daqiiqo ma ahan 10 daqiiqo kulligood siinayso mid qolkaaga gurigaaga qol ka mid go'aanso cunugaas kaliya 10 daqiiqo sii 10 kaas daqiiqo la sheekayso wareeso muxuu jecel yahay muxuu neceb yahay muxuu dhibsaday muxuu wax ku soo korna wax private taasoo aan la dardaarmayn labada waarid labadaba 10 daqiiqo ugu yaraan way ka badan kartaa laakiin ugu yaraan 10 daqiiqo maalintii aabaha 10 daqiiqo inuu la qaato hooyadana 10 daqiiqo 10 kaas daqiiqo oo waqti adag kugu haboon oo adigina awoodi kartid ay tahay no pressure ma jiro wax oo cadaadis ma jiro oo wax adiga go'aansan kartid aan raadin kartid marka 10 kaas daqiiqo maxay taraysaa 10 kaas daqiiqo waxay taraysaa ilmaha inuu ogyahay qof jecel inuu la joogo qof undivided attention siinayo inuu la joogo undivided attention waxa weeye waa waqti oo ma aragtay oo waqti ilmahaas bas saaraysid focuska diiradda saaraysid marka qofka ilmahaas yara diiradda saaraysa asaga la sheekaysanaysa ma ayada marka kalgacayl soo dhawaasho ixtiraan abuuraysa waa beer oo kale ilmaha haday xasuusta maxana waa beer oo kale waxa ku shubatid ka mira dhalinaysa so marka isku soo dhawaashihiina mustaqbalka iyo hadaba ka shaqeynaysa ma fahmaysaa 10 daqiiqo telefoon ku ilmahaaga deebadiin telefoonka ku sameeyso maxaa la dhahay alarmka waxa la hooyo ani 10 daqiiqo haysana 10 kaas daqiiqana ma rabo in aad hadalka badisid waarid ahaan hadalka adiga ha badinin ilmaha ay ka hadlaan because badana anaka waa hadalna waa hadal badanahay waaridiin hadanahay wariyaha sameeyni naayaha sameeyni halka ha tagin dhacda maanta dhana hadleen ilmahan ha hadlaan iyaka mid kale wuxuu dhigi karaa hooyo waxaan meela ciyaari kartaa game
warqad wuxuu rabo uu ogahay ilmaha qaar aqli kali waa mustaqbalka waxay si sameynayaan bariyo kale waxa la sameyn lahayd warqada si qoran bariyo kale waxa ciyaarina game kana lagu asaga ha ku hogaamiyo 10 daqiiqo maalintii 10 daqiiqo wuxuu rabo ama xirabta ku sheegto waxay rabaan ha kula ciyaaraan adiga waxa tahay followers for that 10 minutes yeah waxaan ilmahan waxay baranayaan wax ay rabaan iskoolka waxay ka soo arkeen xataa oo caadi baawurka marka ku soo qaadid ama bas la soo raacdid adadahay maanta iskoolka soo aha dhag oo ahaya lagu dhahaa okay aha no problem laakiin trust me aamin 10 daqiiqo waxa ku ogaanaysaa ilmahaaga waxa daay weydiiso ku sheegin inuu hadda ku sheego alle acuud bilaa adan niyad iska dhehaysid maxaa daayaba weydiiyay maxay igu sheegi weysa maxaa igu sheegi waxa laga yaabaa it was not the right environment, you know. Maybe mel saxan maada joogin, maybe wuu daalna ilmahan waxa laga yaabaa inuu daalna waxa laga yaabaa in ma aragtay xanaaqsana waxa laga yaabaa waxyaabo badan dhici karo Allahu a'lam laakiin waqtigaas yar wuxuu dareemayaa meel amaan ah inuu joogo meel safe ah amaan ah yeah wuxuu joogaa qofka adduun wuxuu dareemayaa ama dareemaysa qofka adduunka ugu jecel inay joogto qofkaas oo wax ala wuxuu doonay u sheegi karo xor yahay oo asaga hogaaminayo waxyaabo kale tira badan insha Allah marka waa ka xuma hadalka aad aan kugu badiyay insha Allah marar kale topic kale one by one idinkaga sheekeyn doona hadii Ilaahayga awood la idmo marka insha Allah afarti waalid aan hal mar idin dul maraya si aad u soo xasuusataan midka koowaad oo aha u taliya oo waarid amar ku taagleen badan oo asaga wax u taliyo loo taliye oo waarid ilmaha u taliyaan oo asi waxba ka ahayn meesha oo ilmahaas waxay dhahan hayaraac iyo wuxuu ahaa iyo waarid wada tasho oo ilmaha la tashto wax kasta xaalad walba meel walba u la tashto waarid ilmihiisa waarid intaba ahayn loomana taliyo waxna uma taliyo ilmahana lama tashto waa warmooge al dhaha waaridkaas marka adi is xisaabi isku noqo waaridka aad tahay wixii kugu haboona adiga go'aanso ma ahan macnaheeda qofkii wax markuu ku sheegayo ina adi qaldan tahay jasar ra'yiba baa lagu la wadaagay marka waxaan rajaynayaa inaad wax ka faa'iiday fadlan hadii aad wax ka faa'iiday iyo hadii kaleba waxa laga yaabaa qof kale inuu wax ka faa'iido oo aad wax ka faa'iidin waxaan ka codsanayaa inaad la wadaagtid dadka kale adiga oo aad iyo aad u mahadsanid meel walba adduunka ka joogtid waa kulanti dambe oo xiiso leh hadii eebaha wada la idmo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bye bye